shakhsi uga soo baxay gobolka awdal ee xisbiga kulmiye waxaan jeclaystay markaasi inaan si xog ogaalnimo ah uga hadlo arrintan shirgudoonka daaran xaqiiqatan anigu waxaan ahay Abubakar Saciid Cali waxaan nahay xildhibaankii ugu codka badnaa ee ka soo baxay gobolkan awdal sidaa darteed marka laga hadlayo arrimahan shirgudoonka waxaan ahay shakhsigii ugu horeeyay ee ka hadlay arrintan sano doonayno iyadoo markaasi aan u wada joogno shir ay u dhanaayeen madaxda xisbiga iyo dhammaan inta ugu badan aan ilaahdee xildhibaanada ka soo baxay xisbiga kulmiye halkaas oo ku cadeeyay markaasi inaan u taaganahay doonista kursiga ku-xigeenka koobaad ee golaha baarlamaanka arrintaasi waxay soo socotaba waxay gaadhay inaan markaasi iskugu nimaadno dhammaan 12kii xubnood ka soo baxay gobolka awdal si aan markaas u doonno ama aan u raadino gudoomiye ku-xigeenka koobaad annagoo markaasi halka ujeedada leh waxaa dhacday in shaxdii isbaahaysigu markaa ay siisay gudoomiye ku-xigeenka labaad taas markaa waxay noqotay arrintii ugu horeysay ee markaa weeqday hankaygii aan ku doonaynay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha baarlamaanka intaa dabadeed annagu ka xisbiga kulmiye ahaan xildhibaanada ka soo baxay kamaanaan hadhin damac ayagaasi ahaa inaan raadino gudoomiye ku-xigeenka koobaad arrintaasi markaasi waxaan xitaa kala gaadhnay oon kala hadalnay oon la fadhiisannay madaxweynaha ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi laakiin arrinta mushkiladda noqotay waxay ahayd in markaasi waxa weeye hal xisbi aanu lahayn xildhibaano u go'aamin kara hanashada shirgudoonka sidaa darteed waa tan keentay markaas in isbaahaysigu abuurmo kaasi oo siiyey markaasi gobolka awdal gudoomiye ku-xigeenka labaad taasina xaqiiqatan ma ahayn hankaygii aan u soconnay markii annagu ishiyugaasi ama arrintaasi taagnayd aan ilaa heer madaxweyne aan isla hor fadhiisannay arrintaa waan falanqaynay waxaa halkaa iminka dadku ay wareejinayaan inuu kulmiye diiday oona waxba u ogolayn gobolka awdal arrintaada haddayda ka shaafiyo bulshada gobolka awdal waxaan u sheegayaa inuu madaxweynuhu oo halkaa noo soo dhigay oo yidhi waxa weeyaan maanta waxaan u baahannahay haddaan kulmiye nahay tiradada ayaan u baahannahay si aan u helno shirgudoonka sidaa darteed waxba kama qabo inaad shirgudoonka ka soo qayb gashaan hase ahaatee maxaad ku soo dari kartaan arrintaas markaa waxay mushkilad nagu noqotay walaalahaygii joogay dhinaca isbaahaysigu inay iyagu laftirkoogan markaa ku qanacsanaayeen inay markaas halkaas joogaan markuu madaxweynuhu markaasi noo soo bandhigay arrintaasi ee annaga gacanta noogu ridow ka taliya yidhi waxaan qaadannay in aan xisbiga u fasaxno isbaahaysiga inuu kala yimaado wax kaba xisbiga sidaas limadana waxaan markaas qaadannay inaan gobolka markaas isna u qaadno arrimo ay ka mid yihiin mashaariic hadday tahay miisaaniyad haddii ay tahay mansabyo kale si waddanka iyo gobolkaba loogu horumariyo arrintaasi madaxweynaha waan kala hadalnay mashaariicda hadday tahay miisaaniyadda iyo hadday tahay saami qaybsiga intaba madaxweynuhu wuxuu si wanaagsan noola qaatay oo runa inuu arrintaasi diyaar noola yahay wuxuuna madaxweynuhu afkiisa ka yidhi waxa weeye maanta gobolka awdal uu ka koray mashaariic yaryar oo iskuuliye wax noocaas oo kale ah waxaad la timaadaan mashaariic waaweyn ilaa heer tuulo gaari karta soo qora ayaa anaga nagu yidhi annaga arrintaasi nagu soo wareegtay waxaan diyaar u nahay in aan soo diyaarinno mashaariic gaadha magaalo kasta iyo degmo kastoo gobolka ah waxaan aaminsanahay inuu kulmiye markaas ku taagan yahay dhabbadii saxda ahayd ee loogu adeegi lahaa bulshada aan matalayno waxaa xusid mudan madaxweynuhu inuu si wanaagsan nooga aqbalay markaan ula tagnay in la soo daayo dhalinyartii xidhxidhnayd isla annagoo halkii fadhinayna oo markaasi ku amray shanankii ciidamada in la soo daayo dadkaasi arrintaasi waxaa ka wada qayb galay shanteeda xildhibaan iyagoo markaa ay wehelinayaan inay sii joogeen labada wasiir ee caafimaadka iyo beeruhu
iyo janaka ciidamada booliska sidaa darteed waxaan halkan bulshada gobolka Awdal looga sheegayaa inaan annagu nahay ciddii matalaysay haddii ay saa tahayna waxa weeye aan kana soo baxnay xisbiga kulmiye waxaan diyaar u nahay inaan kulmiye dhisno sidaas lamidana waxa weeye wixii bulshada aan wakiilka uga ahayn ma aha inaan uga tagnay laakiin waan uga doonaynaa bulshada wixii aan la nooga magaranaysaa fadhiyey aan dhabarka soo saaranay waan ku maqannahay waan kala xisaabtamaynaa xisbiga sidaas lamida waxa weeye waan ku daba joogaynaa xisbigana waan dhisaynaa waxaan aad iyo aad u tilmaamayaa aan u jecelahay inaan markaasi aan fahansiiyo bulshadeena gobolka Awdal inay maanta ku jahwareersan yihiin masab kaliyaata oo aanay faa'iidadiisu soo gaareen qofna aanu soo gaareen laakiin maskaxdeena aan u furno in gobolka Awdal uu u baahan yahay wax ka badan masabkan maanta lagu doorsan yahay haddii ay tahay mashaariic horumarineed waxaan xasuusan karnaa runtii markii aan soo ololaysanaynay ee aan soo marinay dibadaha markaan soo marinay duruufta ka muuqatay deegaanada aan soo marnay waxaad ku arkaysaa hooyo uur leh oo joogta meel isbitaalno ku dhaweey waxaad arkaysaa maxay dadan oo meel ku nool oo wadadoodu ay aad u raftahay ama ay suurtagal ahayn in ay si yaro fudud ku gaaraan xal magaalada waxaad arkaysaa markaa caafimaadka iyo biyuhuba inay markaa week ku ahaayeen ama ay ku liidatay bulshooyinkaas mashaariic waxaan u baahanahay dadka lagu horumariyo iyaan qabaa si markaasi aan u noqono dadkii saxda ahaa ee la soo doortay waxaan leeyahay walaalahayga ka soo baxay gobolka Awdal iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxa wanaagsan in garabka la isku qabsado sidii looga wada tashan lahaa horumarinta dadka iyo dalka bulshada ku dhaqan gobolka Awdal waxaan aad iyo aad markaas maanta aan halkan doonayaa inaan ka xuso oo kale waxaan ku maqannaa suuqa ama markasta baan maqannaa in isbaahaysigu ay yiraahdaan xildhibaanada la iibsanaya waxa sayaab aniga shalay galabtii ugu noqotay in anigaygan Abubakar Saciid Caliya ya la ii soo bandhigay lacag si aan ugu codeeyo isbaahaysiga waxa la ii soo bandhigay lacag $100,000 aanuna been sheegay xaqiiqatan anigoo Abubakar oo is qofkaan ahay qiyamkayga way arintaasi waxay ku noqotay arrin qariib oo la yaabay mana yihi qof lacag goyso runtii waxaan u sheegay bulshada gobolka Awdal inaan nahay xildhibaanadii ay soo doorteen oo u maqan wixii ay soo doorteen waxaan ballan qaadayaa insha Allah tacaala inaan markasta u taagnaan doono una taaganahay gaar ahaan Abubakar sidii aan u matali lahaa bulshadii soo dooratay iyo guud ahaan gobolka Awdal iyo qarankaba waxaan aad iyo aad markaasi ugu talinayaa bulshadu bal in ay eegto waa maxay waxaan u baahanahay ma qof baa la shaqo geynayaa mise waxaan u baahanahay wixii bulshada baahideeda buuxin lahayd waxaan aad u jeclaystay markaasi inaan ku soo gabagabeeyo inaan anigu aaminsanahay mar labaad iyo mar saddexaadba kulmiye inuu yahay meeshii aan uga adeegi lahayn danta iyo baahida bulshadayna haysata waxaan u baahanahay fikir inta ka dheer oo soo gaara markaasi magaalo ilaamiyi dadka wada gaara barashooyin noocaas oo horumarineed iyaan u baahanahay waxa ogtihiin inay dadteena ama bulshadeena ama dhalinyarteena maanta ay baahsan tahay amal la'aantu waxaan u baahanahay shaqo abuur in la iska kaashado dawlad iyo bulshada waxaan u baahanahay inaan soo bandhigno fikirno maxaa dadkeena lagu horumari karaa laakiin ma aha in kaarar yaro magaranaysa daciifa ama raqiisa la inaga xoqdo oo dadkan lagu jahwareeriyo wax soo gaaban laakiin aan ka fikirno mustaqbalkeena fog iyo sidii dadkan ku noqon lahaayeen kuwa ka baxa baahiyaadkan markasta ay ka cabanayaan waxaan aad uga xumahay in kulmiye iyo gobolka loo kala waraabeeyo waxaan leeyahay kulmiye mansabkan imika xitaa Axmed Yaasiin Sheekh Ala ayaan uu ku fadhiyo horta waa kii bixiyay waxa kale oo bulshada u sheegaya inuu kulmiye maanta uga leexid jecel badan yahay gobolka sidii markii hore waxayd maadaama uu codkii ugu badnaa gobolka uu ka helay maanta waad mahadsantahay
suxufi cishqi MMTV magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal.